8 February sanadkii 2017 baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorasho dadban ku doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo cod aqlabiyad ah kaga adkaaday madaxweynihii xilka hayay 19 February madaxweyne Farmaajo waxa uu ballan qaaday dagaal 2 sano gudahood lagu soo afjarayo colaadda raagtay iyo weerarada dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab 23 February waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo helay kalsoonida baarlamaanka xukuumadna soo dhisay 8 Juun xagga siyaasadda dibadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaadatay go'aan dhexdhexaad ay kaga noqotay xiisadda khaliijka balse qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay go'aanka dowladda oo taageeray isbahaysiga khaliijka 11 Oktoobar madaxda dowlad goboleedyada ayaa Kismaayo kaga dhawaaqay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa ayna dowladda federaalka ku eedeeyeen in ay burburinayso dowlad goboleedyada gabagabadii Agost dowladda Soomaaliya ayaa Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda Itoobiya la dagaalanta ee ONLF waxaa ka dhashay carab bulsho meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahna mudaharaadyo ayaa ka dhacay dowladdu waxa ay sheegtay in ay fulinaysay heshiis ay dowladdii ka horeysay la gashay Itoobiya guddi uu baarlamaanka Soomaaliya u saaray arrinka ayaa sharci darro ku tilmaamay 14 Oktoobar qarax weyn oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday ayaa ku qarxay wado aad ciriiri u ah 512 qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen cidna ma aanay sheegan mas'uuliyadda qaraxa balse dowladdu waxa ay ku eedeysay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab waxaa loo aqoonsaday qarax argagixiso kii ugu weynaa ee Afrika ka dhaca 17 January madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaal ku maray deegaano ka mid ah Puntland iyo Galmudug waxaa loo soo dhaweeyay sidii loo soo dhaweeyay markii la doortay madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay mashaariic fara badan balse waxa ay su'aashu ka taagan tahay sida ay u hirgeli karaan mashaariicdani waana su'aal taagan oo laga qabo guud ahaan maamulkiisa hal sano kadib Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho